وهذا داعي بل تصال أهان كان إنك الصومالي لندها هاي قفك مدحوينها إنه نقنايا أنت السنة أو مدحوين نمت كلا ما نايو أو مدحوين أهانايو وما يقصنوا وعشان سنة بل آيات قرآن كسو صار جمهورية الصومال رئيسها مدته 5 سنوات آيات كم جرتوا حديثنا كم جروا محل السمين مركب وحال السمين آية محور معاد كينيا بالكري لا يهد بريق هورنا كينيا ما بان لها الجريم حتى كوا دقالك الله ديارنا يكمين جري بريق دقالك 7 اللي جلاي وحال لي جري بهرتا إثيوبيا عندي بدنه إثيوبيا أمريكا كسو صارنا كينياتون waxay dhijin haday Ethiopia meel iska soo saartaan dhulka NFD anagoon dagaal gelin aynu ku rajinayna ma dagaal ma galaan kuwa waxay dhigi jireen ma militariga iyo commandos ma loo diray ciidamada booliska loo diraa booliska xaafadaha jooga dadkii aan booliska aanu diri lahayn waxba aan u dirin maanta leenaga kari laayahay badeeni iyo dhulkeeni war maxaa rabtiin ma si loo celiyo ma waxa la yiraahdaa lan uur nugul adin mudubow nin waxa laga wadaa qof markuu calool jilicsan yahay oo uur jilicsan yahay الدين مقطع أفمايماك واسي إنجليز وكله وبريتش وكله سي كم جرت ماشي سي أتكواري تكتور بس علي هذا مثلا علي صار ملاعب سي ذا كتور علي ولا يو علي لا واي مرة هذا محاتي مثلا برورته وكله برورته على عدين ولا عدين برور عدين كوجر سوما عدينته سي ذا كتور مرك عدينته maxaa ku saaray markaas magacaydaan lan uur nugul addiin mudubow nin beer jilicsan oo caloo jilicsan cadiintan hilibkan oo baruurta ma dubi karo maxay markuu dabka saa u saaraba fash markuu dhaw ka soo qaado inuu bisaado malaya baasho caylinuu keena marka maxaa la rabaa inaan la cabsanin Soomaalina waxa lagu bartay ruux mar haday arkaan ma soo celinayaan marka bal هذا دانا أنا ما يكون جوجا مسؤول علينا كواكو داي محافظاته مركب لو كاديو وحن فينا يعني هذا مر أركان صومالي ذو قف ما بسؤول علينا يعني وهذا وقت هذا مدحونا كي كوري أفرت سنة ما كذا مات أسقوا على ورقبيان كذا لما يستري وحيري كادية يا وحيرة هرت محضو قبيس هذا يقولون من وين حاجة لو قدام مين أو أختي أقول يا رابانية هذا اللي من فهمي أو شكل ماشي اللي جري ما ذيك الإنسان مايا waxa uu nabigu ninka ugu jawaabay bal dhageyso hadii ducadaadii dhanayda salligayga ku soo koobtid adduunka dusheeda wixii hammi ugu maadnaa hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata oo xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa oo doonayo labadaaba wada shay rasuulku ka yiri qishan marka idin ku soo gabagabeynay meel la yiraahdo Detroit magaalo la yiraahdo oo ku taal maraykanka oo la leh waxay la leedahay xuduud yani Canada ayaan waxaan ugu tagay Yurub baan ka tagay muqtamar baan ka qayb galay waxaan ugu tagay jamaa khuruuj ku baxdayo akhuuna Saeed Yahya rahmatullahi alayhi oo hogaaminaya Saeed Yahya waa ninkii axbaarada ku dishay xamar markaskii al-Hidaaya daaci ila Allah yaha isaga iyo koox xamar ka tagtay baa isoo waxay dhaheen inaad na soo booqato waxaan sameynay ijtimaac la 500 Soomaali oo gobolka kale ka yimid bal inaad nagala soo qayb gasho anigana waxaan soo qaatay fiisadii Mareykanka fiisa kale oo Canada waan wataa Canada marka dad oo qaraabaday iyo walaalahay iyo dad badan baa degan marka inaan bil soo joogaan rabo meeshii baan nimid Detroit ijtimaaci baa ka dhaxay saddexdii bari baa la joogay markii la kala tagi lahaa iyagu fiisadii ay Mareykanka ku yimaadeen maalin baa ka dhiman way dhamaatay waa inay bari ma haysadan ba ay noqdaan markaas waxaan ku iri keligay hay u sii daynina Canada waa inay raacdaan waa aan jawlada wada qaadno oo dadka walaalahayna soo wada booqano meelaha iyo makhaayadaha iyo meelaha si ugu tagno way bay dhahan diyaar baan nahay nimankii markaa sii joogay Detroit deganaa localka wadanka ka ahaa ayaan waxay dhaheen arrintaasi arrin suurtoobaysa ma aha
nimankan baasaboorradoodu baasaboor Soomaali baasaboor Soomaalina in Canada ay fiisa ku dhufato waa mustaxiil waa arrin aan dhici karin marka waxbana waqtigan wadaadka ha ka daalin idinkaas daalin idinkuna yuusan tigirka idinka dhicin iska sii socdo New York iyo meelaha ka dhoofayeen idin sheekhana barrito annaga sii dhaweynayna waxba isku dhigana waxay dhahan taas wax macquula ma suurto Saciid Yaxya raxmatullahi alayhi wuxuu yiri annaga fiisada kuwan Canada kama rabnaa ilaahay baan ka rabnaa عوان إلهي ويديسانينا والله ساسوير عوان أرجي إلهي وقرنينا بريتو مركز سفارة دواتينا قنصو شمال كنتها إلهي با ويديسانينا هاتونا السيوك هذيك لنا واسكن قرنين واه ثم سيدي بعد عدي وحنا هدو وشاكينا إذا كاسا ديوا في الآخرة هو الآن في الآخرة لكن وحوينا إلهي لا تسلم عليك صبحي وركي أي همينك ولا تكذي لها لبري من يرى الدلالة أهم شيء صلاة الدلالة صلاة شنت صلاة مرنا بقرقرت في سيدك الجنين والله ثم والله هذا صلاة كدلاشو أو هذا جسو وسيد إلهي جعلها ذو تكتو إلهي أمور تضل وكوس عليه وحكاها الله بيانا ملك حيالي أنهنا أبو ربا وحليه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة aad iska ilaaliso wixii soonkaaga waxyeelaya oo laba qaybood ah qaybi soonka way jabisaayo markay aad la timaado soonkaaga oo dhan waa u dhamaanaysaa maalin kale inaad soo celiso soo qalaysaana laazim kugu noqon doonto qaybta labaadina waa qaybaan soonka jabinaynin laakiin ajirkiisa baabi'inaya oo waxba ka soo reebayn qaybta hore ee soonka jabinaysay waa arrimo kooban oo loo baahan yahay inaynu ku baraarugno in badanna aan rajaynayo inaynu garanayno waxa koow ka ah cunitaanka iyo cabitaanka quraanka kariimka ah iyo ahadiista nabiga inoo sheegtay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waana lisla ogoliyo hadal badani kuma jiro qodobka labaadi wax weeyaan soonka jabiya waa waxaan cunitaan ahayn cabitaanna ahayn laakiin macnihii cunitaanka iyo cabitaanka ayuu leeyahay oo jidka wuxuu siinayaa wixii cunto uu ka helayay ama cabitaanka uu ka helayay taasina waxa weeyaan waa maadooyinka glucose ama biyaba ama wuxuun mawaada muqadiyada jidka dheefisa ee xididada laga qaadanayo waa faleebada xididada la iska siinayo ruuxa laga siinayo ayadana soonka waa jabinaysa maxaa yeelay cuntadii baa lagaga kaaftoomi karaa ilaa waqti xoogii iyo dheeftii cuntadii cabitaanku bixinayeen jidka way siinaysaa waxa looga qiyaas qaadanaya cunidii cabitaankii iyaduna soonka waa jabinaysaa say culimada maanta joogta badankood qabaan arinta saddexaad ee soonka jabisay in la iska ilaaliyo u baahan wax weey inaad iska mantajiso mantagu waa laba inuu isagu ka yimaado ku soo dhaafo ha ceshanin ha ka soo baxee soonkaaga waxba yeeli maayo iyo inaad adigu soo saarto aad sabab adigu aad leedahay ku soo saarto kaasi soonkaaga waa jabinaya nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam cidii soonku soo dhaafo ka qaalib noqdo qallal laga marrabe soonkiisa waa wadanaya ruuxiisa iska matajiyo buu nabiga sallallahu alayhi wasallam kaasi ha qalleeyo soonkii waa ka jabay macnaheedu wax weeyaan marka inaadan iska matajino mantaga aad iska ilaaliso waxa la mid ah oo qodobka xige ee soonka jabiye in la iska ilaaliyo u baahani uu yahay waa galmada ragga iyo dumarka dhaxmara quraanka kariimkaana Allah waa ku tilmaamay xadiidkii Abu Hurayra fi sahihayn nabigu waa ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam cidii galma ay ka dhacday waliba soon jabay kaliya meehe kafaara culus baa ku laazimaysa inuu adoon xoreeyo hadduu kari waayo inuu 2 bilood oo isku xigta soomo ramadaan kadib hadduu kari waayo inuu 60 miskiin quudiyo oo miskiinkiiba nisu saac u siiyo hawl culus waay sidaas daraadeed waxa waajiba inaad iyadana iska ilaaliso waxay culimada badankood qabaan oo jamaahiirtoodu salafan wa khalafan ay qabaan ayadana soonka inuu jabinayo biyaha manida iyo shahwada oo la soo saaro ruuxu isaga qasad uu leeyahay ku soo saaro ama gacantiisa ha ku soo saaro ama wax kale ha isticmaalo biyaha hadduu iska soo saaro shahwada sabab uu leeyahayna ku soo saaro ayadana soonka inay jabinaysay culimada badankood qabaan iyo jamaahiirtoodu
waxayna u daliishadaan qaar ka mid ah xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam rabbi markuu yidhi soonka ana iska leh anigaana abaalgudkiisa bixinaya wuxuu ka dambaysiiyey addoonkaasi wuxuu ka tegey cuntadii iyo shahwadii buu aniga dartay uga tegey marka biyuhu gacan la isaga keeno ama sabab lagu keenay sabab kale lagu keenay shahwadaadii oo aadan ka tegin waay sidaas ay culimada qaar kood u daliishanayaan wabitaali soonkii waa jabinaya siday badankood qabaan waxyaalaha sidoo kale to soonka jabinaya waxa kamida oo isagu maqaadiir rabbi dumarkana khaaska ku ah dhiiga caadada ah iyo dhiiga dhalmada sida axaadiista nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo kale tibaaxday waxyaalahaasi waa waxyaalaha soonka jabiya in badan oo dadku ay u haystaan soonka inay jabiyaan waxyaalo badan oo kale ta soonka wax ma yeelaan laakiin inaha daliilka loo hayo inahaas way soonka jabin karay intaasi marka waa intii soonka baabi'inaysa oo la iska ilaalinayo waxa kale oo iska ilaalinaysa wax kasta oo ilaahay xarimay oo carabkaaga ishaada dhagtaada gacantaada lugtaada wax kasta oo xaraan oo ilaahay xarimay oo samayso adoo sooman soonkaagu wax yeelaya sidaas daraadeed nabigeenu salawaatu rabbi wasalaam alayhi wuxuu yiri ruuxi aan ka tagin hadalka xun iyo dhaqanka xun ilaahay tabaaraka wa tacaala wax dan akamale ya inuu cuntadiisa iyo cabitaankiisa ka tago inuu gaajoodo oomo ilaahay wax dan akamale ajirna ka heli maayo xadiid kale nabigeenu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam soonku ma aha inaad cuntadii iyo cabitaanka iska dayso intaasi soon ma aha laakiin soonka dhabti waxa weeye inaad afxumada iyo dhaqan xumada iska dayso ilaa nabigeenu yiraahdo salawaatu rabbi wasalaam alayhi hadduu ruux ku caayo kula caytamo ama dhaqan xumo kugula kaco hala ficiltamin hala caytamin ha ka ficil la qaadanin laakiin waxa tiraahdaa war waan soomanahay waa kula dagaalamay waa ku caayay waa kugu xadgudbay war waan xakamaysnahay waa iska ka celin karaa laakiin waan xakamaysnahay xagga rabbi baa leeyahay xakamay waan soomanahay soonkaaga ilaasho يعني waxa hadaad ila shan weydo waxa kugu dhacaysa xadiidkii nabigu sidoo tilmaamay salawaatu rabbi wassalaamu alayhi rubba saa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atash waxa badan dad badan oo sooman baa jira laakiin soonkooda dheefta ay ka helayaan kaliya ay tahay inuu ooman yahay oo gaajaysan yahay bas wax kale oo uu ka helaya ma jiro waa dhibaatooday soonka saxda ah ee inta soo ajiro la tilmaamayo laga guranayo adduuniya aakhiraba allana jeceliye janno lagu heliyo iyo rida rabbi tabaaraka wa taala wa soonka adigoo dhan ku wada xakameey ee adigoo dhan ku wada celinayo way xubnahaaga dhan wada qabtay ku kontroolaya ku celinaya laakiin ma aha mid intii xalaasha ku ahayd soonka ka hor intaad daysay intii xaaraanta ahaydna aad iska qasanayso waa qariib soon intuusan soo gelin xantu xaaraan bay ahayd beentuna xaraam bay ahayd xadgudkuna xaraam buu ahaa fiirada khaladkaana xaraam bay ahayd intii soon ka hor xaraan ahayd soon markuu soo galay xaraannimadeedu waa sii cuslaatay in xalaal inoo ahayd soonka ka hor baa laynaga xarimay intii xaraanta sii ahayd warkeeda iska badaa sidaas daraadeed waad sooman tahay macnaheedu adigoo dhan baa wada sooman calooshaada xubinkaaga taranka indhahaaga dhagahaaga gacmahaaga lugahaaga qalbigaaga kulligaa wada soomanta hadaad sidaa yeeli weydo soomaaha tacab khasaar baad markaa isu diyaarinaysaa waad daashay waadna rafaaday laakiin wax tacab kuma yaalo ajirna ilaahay agtiisa ka sugi maysid ilaahay tabaaraka wa taala waxaan weydiisanaynaa inuu soonkeena cibaadaadkeena iyo acmaasheena intaba alla inuu aqbalo tabaaraka wa taala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك